السلام عليكم. kusoo dhawaada darsigeeni labaad ee barashada luqadda Talyaaniga. Shalay tolo waxaynu soo baranay sida salaamaha ama qof loo salaamo. Maantana waxaynu ku baranaynaa darsiga sida loo dhaho magacaaga iyo sida qof u weydiinayso magaciisa in Italian. Let's start. Phrase-ka koowaad aynu soo qaadanaynaa wuxuu yahay ciao, mi chiamo tu come ti chiami? Mi chiamo tu come ti chiami? My name is adaa gashanay magacaaga. Tu come ti chiami? Tu come ti chiami waxaynu isticmaalnaa ama waxay la micno tahay what's your name? Tusaale, mi chiamo Ali. Tu come ti chiami? Ciao, mi chiamo tu come ti chiami? Hello, my name is what's your name? Mi chiamo my name is tu come ti chiami? What's your name? Tusaale kale aynu soo qaadano. Ciao, mi chiamo Claudio. Piacere. Claudio waa magac Italiana sayada magacaaga gashanaya. Ciao, mi chiamo Claudio. Piacere. Ciao, mi chiamo Claudio. Piacere. Phrase-ka saddexaad u dambeeya aynu ku baranayno casharkan wuxuu noqonayaa ciao, Lucrezia. Ciao, Lucrezia. Goodbye, Lucrezia. Lucrezia waa magac Italiana. Ciao shalay tolo waxaad soo baratay inay means hello, laakiin waa loo isticmaalaa hello and goodbye both means. Subtitle-kan waad ka arki karaysaa. Waxaan rajeynayaa in darsigan wuxuu ay kaaga baxeen. Salaamaad le.